waraabo yaro markaa dhashay uu yiri balad soo xanaanaysido maadaama waraabayaal wax cunay uu soo wariga arkin arigu kamid noqon doona dabeecada arigu kale oo iska qaadan doona waraabo yaro markaa dhashay soo xanaanayso soo qaatay markuu gurigu kaansaday oo arigu isaga dhexdaayo caanihiisa iyo maragtaay cawskiisa iyo wixii uu keenay wixii uu ariga u siinay dhinaciisa ka siiyay ooga markuu soo weynaaday oo neefkii jarka ahay islaha odagu dhigaasho meel ku dhigaasho bal aad jarati neefkii ku soo dhig uuska ka dooxay eber uu ka siiyay waa dhameeyay odagu gurigu yimid waraabihii oo neefkii dhameestay waxa waraabihii uu yiri weligiis wax ma arkin meel wax lagu cunay markuu yimid neefkii meeshii uu dhameestay wuxuu yiri waman anba'aka anna abaka dibun yiri war aabaha inuu waraabe ahaa jiray ku sheegay weligaaba ma adan arkin aabaha iyo meel wax lagu cunay man anba'aka anna abaka dibun yiri afar kitaaba waxa wanaagsan qofka maktabadiisa inaysan ka marnaanin afar kitaab waxa wanaagsan maktabadaada inaysan ka dhaxbixin hadaad doonaysid axaadiista inaad ka gun gaarto axaadiista xaqiiqadeeda inaad ka gun gaarto hadaad doonaysid afar kitaab maktabadaada ayaan laga weynin kitaabka ugu horeeya waxa weeye al-majmuu' lil-imaam an-nawawi mas'alo walba wixii xadiis ku soo arooray iyo axaadiistii daahirkooda aad moodayso inay iska hor imanayso iyo qaabka la isugu daaweynayo iyo madaahib ulculamaa xadiis walba aragtida culimadu ay ku leeyihiin iyo waxa lagu ijmaacay waxa la isku khilaafay kitaabka majmuuca marka waa muhiim kan kalena waa kitaabka hadda mas'aladan aan ka soo guurinayno as-sunan al-kubra lil-bayhaqi as-sunan al-kubra lil-bayhaqi kitaabka saddexaadna waa darxu tathrib lil-haafid al-iraqi kitaabka la yiraahdo darxu tathrib oo iska leeyahay haafid al-iraqi kitaabka afraadna waa al-istidkaar libni abdilbar afartaas kitaab yaan maktabadaada laga weyn haddii aad doonayso axaadiista inaad xaqiiqadooda iyo guntooda ogaato afartaa kitaab manhajkoodu waa iswaafaqsan yahay manhajkoodu waxa weeye xadiis walba mas'aladan wax walba xadiis ku soo arooray ayay sheegayaan haddii axaadiista daahirkooda aad moodayso inay iska hor imanayaanna waa kuu jamcinayaan qaabka loo jamciyo iyo madaahib ulculamaa iyo wixii khilaaf ahoo ku jira mas'aladan oo dhan ayuu kuu sheegayaan ashhab ibni cabdilcaziiz misriyun waa sheekhii marka habaaray imaamu shaafici sida kutubta taariikhda o dhan ay sheegayaan sheekh imaamu shaafici habaari jiray qisadiisa inta dhowr goor waanu soo qaadanay oo sujuuddu wuxuu ku dhihi jiray allaahumma amit ashaaficiya lianlaa yadhaba cilmu maalikin asaga maalikiyu ahaa sheekhuy cilmi maalik si uusan uga dabar go'in waddankan masar markuu sheekhu soo galay weye marka wuxuu dhihi jiray allaahumma amit ashaaficiya lianlaa yadhaba cilmu maalikin cilmiga maalik siduusan masar uga dabar go'in ilaahu imaamu shaafici ilaahu dil saasuu dhihi jiray sheekhuna wuxuu dhihi jiray lam ara midlahu lowlaa tashaduxun fiihi xoogaa un yaroo fudaydaa ku jira maahane isagoo kale masar kuma arkin uu dhihi jiray imaamu shaafici waana ammaana isagina waa habaara ashhab ibn cabdilcaziiz sheekhu habaari jiray lowlaa dayshun ay ahayd cibaarada lowlaa dayshun fiihi xoogaa yaroo fudayduhuu qabaa maahane isagoo kale waddankan masar ma joogo saasuu dhihi jiray imaamu shaafici isaguna sujuudu ku habaari jiray allaahumma amit ashaaficiya lianlaa yadhaba cilmu maalikin ilaa cilmu maalik intuusan tegin imaamu shaafici ilaahu dil saasuu isaguna dhihi jiray tamanaa unaasun an amuuta fain amut fatilka sabiilun lastu fiiha biawxadda gabaygaas markuu tiriyey way sheekhu tamanaa unaasun an amuuta dadaa tamaniyey inaan geeriyoodo fain amut haddaan geeriyoodo fatilka sabiilun waa waddo lastu fiiha biawxadda kaligay aanan ku noqon doonin oo kan i habaaraya naftiisa iyo anigu waa ku simannahay wuxuu igu habaarayo iyo wuxuu igu habaarayo waaba ku simannahay isku dariiqan waan maraynaa maxaa qof looga habaari geeri waddo adigu aad maraysid waddada aad maraysid ha looga habaari marka imaamu dahabi raximah ullahu tacaala iyo kayrkiisba taajudiin subki isaguna dabaqaadku ku soo guuriyaa dabaqaadku shaaficiya dhowr iyo 10 maalmood uu ka dambeeyey imaam shaafici markuu geeriyay ashhab ibn cabdilcaziiz dhowr iyo 10 maalmood ayuu asaguna ka dambeeyey marka alxajaru alaswadu min aljanna ka ahaaday waa juz min ajzaa aljanna waa xajarun min axjaari aljanna dhagaxda jannada ka mid ah
وفضلك يا قيمها ونبينا نكشها صلى الله وسلم وبارك عليه مركا دغخ aad u barakaysan way ولذلك نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه wuxuu inoo suneeyey mar kasta oo qofka dawaafaya uu soo agmarayaba inuu markaa salaamo dhunkado oo wejiga uu saarto uu noo suneeyey nabigana صلى الله وسلم وبارك عليه xajar aswadkaas